markii uu maxaa la dhihi jiray maalinkay naagta ku dhahday sooy ay ka danaysatayna wax kasta uu khasaaray daanyeer markaa tahay wax kastaad khasaaraysaa nafsadaadaad weyn kartaa waad dhiman kartaa lacag la'aan baad noqonaysaa ummad ma haysatid dadku caawinaya ma haysatid dadkii waa lagaa xidhxidhay waa kuu dhammaatay adigoo dhan okay jacayl baan jilayaa jacayl noloshu jacaylka iyo farxadday ku bannaan tahay walaalo dhiikar markaa soo qaado jacaylkaa ka dhex arkay daanyeerka waa dili weyse mahano daanyeerka waa dili weyse okay emotional baad noqotay okay naag baad u ooynaysaa abaa waa ku baryaa wallahi bilaa hal mar leexe fuck you bra war adiga meeshaad nolosha ka taagan tahay isfiiri hal daqiiqo waa idin baryaa laba xaniyoodlayaasha hal daqiiqo bal taleefanka dhiga commentigana joojiya noloshaada say u taalla fiiriyo meeshaad taagan tahay iyo waxyaabahaad samaysid waad soo kacdaa waad cuntaa waad cabtaa boom baad daawataa waad siigaysataa naagna waad burisaa internetkana waad ka oydaa intaasaan iskugu soo biya shubannay intaa waynu ka weynahay motherfuckers isbeddel inaad samaysaan baad u baahantihiin dil daanyeerka intuusan adiga ku dilin maxay ku dhacday inay rag is caddaynayaan mataqaanaa waxba kale kumay dhicin okay baa looga dhigay naagihii oo dhan baa maxaa la dhihi jiray ku haya raggii rag lama hadlaan okay hal daqiiqo qaado noloshaada fiiri siday u taalo nin ahaan maxaan ka bedeli karayaa dhe 2022 sanadku waa socdaa waqtigu waa socdaa halka saac aad igu daawanayso waqtigaaga ka mid tahay soddonka daqiiqaad comment ku bixinayso waqtigaaga ka mid tahay subscribe inaad soo saarto waqtigaaga iyo noloshaada ka mid tahay barnaamijka share garay follow samay like na samay mabuurbu shalow ka soo dhacay ma bacbay sanqadhay ma biisas baygu qayshay ma jaacayl baygu beermo oo bogiyo wadnahay okay dhalinyaradeenna been baad ku nooshihiin brada beenta ha laga baxo okay beenta ha laga baxo hala joojiyo maxaa la dhihi jiray sida naagaha inaad u dhaqantaan nin aniga maxaa la dhihi jiray xaliyo bidaartiisa waxa ku haya ninkaas nin daalan waay already ninkaas sidii aniga markuu nin ahaan ila macaamilay waa la macaamili karaya raggii way daalan emotional bay noqdeen tacbaan baad noqoteen noloshiini waxa waaye meel ma taalo saasay tahay waxaad rabtaan inaad dhahdaan gabdhaha Soomaaliyeed adiga oromaa tahay yes adiga waxaa tahay adiga qowmiyad kale ka imaatay Soomaali ma tiid adiga noloshaada maalin kasta inta nina dhimanaysa cid ka hadashay ma jirto no one gives a shit nina nu dhinto okay xaliye adiga naag ma war hatta haday soo xumaysay baraada de ma taagni meeshii like what the fuck it's not even a topic fiiri inay naag lacag ka cuntay oo la hadda ka hor lagu gaaday it's okay it's a part of life what soo martay oo darbiga soo taabatay no problem laakiin isbedel baad u baahan tahay hurdada inaad ka kacdad u baahan tahay waxaad u baahan tahay inaad bedeshid maskaxdaada okay inaad maskaxdaada bedeshid baad u baahan tahay awow inaad fahantaa rajeyna okay meesha xooga aad af Soomaaliga iyo boojada iyo xanta iyo sida warfiir raggii xanay raadinayaan waray raadinayaan rag kale maxaa la dhihi jiray sidii naagaha wala macaamilayaan noloshoodii oo dhan god bay ku jirtaa yaray waqtiga aad internetka ku bixinayso dil daanyeerka intuu sanadiga ku dilin haddaad dili weysid tankiyo shariifa ku jeeda haddaad dili weysid daanyeerka aduu kaasiinaya jooji all naagaha aad follow garaysid and follow de maxay ku soo kordhiyaan noloshaada hore maxay ku soo kordhiyaan de all naagaha 2 million ka haysta kulaha dabadeeday ruuxday maxaa daba wax weyn miya adiga daba wax weyn miya tabay ruuxdayo yes because of rag guska gacanta ku wada haysta daawanaya brother bedel brother you need inaad isbedesho cid ku sheegaysa noloshaada inaad isbedesho ma jirto halkaas taagnaanaysa naagtii aan shukaasan jiray way iga tagtay way ka tagaysaa because of nolol kale ma lihide maxaad samaynaysaa nolol kale ma lihid markaad nin diyaarsan tahay markaad nin go'aankiisa dhaqaalihiisa maskaxdiisa wax kasta ilaashanaya aad tahay okay hal naag maaha waxaan ka wada hadlaynaa naagaynu ka wada hadlaynaa naago aynu ka wada hadlaynaa kiiskan lacagta aan idin sheego aan ku dhaho maxaa la dhihi jiray lacagta sida lagaaga cunayo iyo naagaha sida lacagta ku qaatan iyo waxaan oo dhan warag baa u waashay lacag laga qaatay darteed alxamdulillah ba adiga iyo aniga iyo waaba caafimaad qabnaaba adiga iyo waa caafimaad qabnaa waxbaanba ka baranoonaaba rag baa waashay baraada oo ku jira maxaa la dhihi jiray daawo qaata rag baa homeless u noqday
nin odaya maalin dhexdaas sheekadiisa ii soo diray wuxuu igu dhahay saaxiib naag baan 10 sano qabay laba canug iyadoo leh baan maxaa la dhihi jiray ku guursaday waan ku qaatay war adiga fiiri istoorada xataa ma qaataan alaabta celiska waa waalantaadi mise u qaadanay waan ku qaatay okay wuu ku qaatay laba canug bay lahayd Sweden bay ka dhacday ninka odayga ha ila soo hadlaya barnaamijkeega wuxuu igu dhahay saaxiib 3 canug bay ii dhashay kadib dhalmada iska xirtay ilmihiina cayr bay bilowday inay ku qaadato inta isagu uu shaqaynaya shilin kasta wuxuu dhahay saaxiib gacantayga ka dhigtay everything gacantayga ka dhigtay gacantay wax kasta ku dhigtay controlkeedan ku hoos jiray intaas oo dhan cid waxay sheegtay saaxiib ma jirin ninkan kala hadlay waa 46 jir waa okay 46 jir waa barnaamijku daawadan adag waa hadda waa adkaaday ninkaas daanyeerka muudilin daanyeerka wuxuu ogolaaday 10 sano inuu ku dhex noolaado isaga maxaa dhacday ma taqaana ninkii dhaqaale la'aan buu noqday markasta waa la burin jir u dhahay saaxiib guriga laga burinaya waxa la leeyahay sooy bax baa la leeyahay laba bari kadib wariyaa sooy iga bax baa la leeyahay meesha ka bax meesha sooy waa baxa saaxiibka waa soo wareega wuxuu ku leeyahay heer waxaan gaaray naagta anigu aan qabo ay ii barbariyaan maxaa la dhihi jiray naaga kale xataa niman ma jiraan markaan asxaabtiisi waa laga isolate gareeyay waa laga jaray quarantine baa la geliyay ninkii dhinacana waa laga burinoyaa lacagtiisii oo dhan iyo wax kasta gacanta lagu haya ninkii saasay wahayd ciyaalka manipulationka ugu weyn ee naagu ay sameeyaan waxa waaye ciyaalkaaga soo bahalkiyay fak ciyaalka baraada adiga haddaad luus garaynayso fak ciyaalka fak iyada fak qof kasta oo kugula dardaarmaya inaad naagta sii qabto sooy baxso baraada waxaa tagtaa maxaa la dhihi jiray Kazakhstan aad baraada ciidan hala hadlin ilaa intaad ka soo dilayso daanyeerkaas ilaa inta daanyeerka ka dilayso Kazakhstan ku soo noolo baraada okay iyo Croatia okay meelahaas aad baraada ninkii odayga ahaa 10 sano uu sidaa ku jiray 10 sano kadib shaqo la'aan buu noqday darbigu soo istaagay maxaa la dhihi jiray reerkiisii iyo walaalihiisii iyo raggii maxaa la dhihi jiray caawin lahaa de mar hore kala dhinteen because of wuu diiday daanyeerka inuu dilo rag nasiib leh baa dila daanyeerka habarteed bay ka tahay waa dili waaye daanyeerkii naagtii isaga oo uu qabo bay nin kala soo xaraysatay nin kala isagoo uu qabo ciyaal ka dhalay naagtii waa la buriyay isaga moogtaa nin kala soo xaraysatay xariif kale oo isna daanyeera baa qoftii ka maxay sameysay mataqaana waxay samaysay canug bay u qaaday canugii waxay ku dhahday adaa dhalay daanyeerkii hore meesha sii joogay baa waxaa lagu dhahay canuga adaa dhalay na canuga see ku dhalay adigu isqabqabsi kadib waxaa la sameeyey DNA baa la sameeyey DNA-gii baa la soo ogaaday canuga isagu muu dhalay daanyeerkii muu tegine kulaha way soo hanuunaysaa daanyeerkan haddaad hore ka dili weydo aduu ku dila aduu kow kaasiinaya waa soo hanuunaysaa xaliyo kulaha raja igu jirtay manaag inta baxday hoosteeda dhiibatay oo nin kale uu canug ka soo dhalay kugu nabtay aadii anaygi soo ogaata raja ka qabta no problem daanyeerkii wuu dili waayay adiga calaa taxal daanyeerkii waa ku dhex nool yaa wali raju ka qaba canugii labaad oo nin kala dhalay ba haddana uur ay qaaday markii buu waaw ku bariyay lacag ma hayo guri ma hayo waxba ma hayo 8 bilood buu wuxuu dhahay saaxiib cid xataa la noolaada waan waayay homeless baan noqday maxaa la dhihi jiray dawladda shaqa iga xaraysnayd cayr inaan bilaabo maartay isheeg ay noqotay noloshii iyo dhan baa isku wareertay 10 sano daanyeerkii uu dili waayay buu hadda la dagaalamaya wuxuu ugu dhahay saaxiib barnaamijka waa aad buu caawi okay xataa ninkaas heer wuxuu hadda maraya wuxuu ugu dhahay sonkorta tanyar baa ugu dhacay sonkorta laba qayb waa I think waxa jirta B iyo A laba qaybood waa sonkor baan qaado ugu dhahay saaxiib okay boqol iyo wuxuu igu dhahay waxaan ahay 42 kg oo ma fahmino waa nin yar waa 46 sano jir waa okay daanyeerkii buu dili waayay daanyeerkii baa ku dhex noolaaday 5 sano ama 10 sano oo kale qaadanaysa inuu dilo oo daanyeerkaas la macaamilo oo uu isagu noolaado meeqa nin baa jira maxaa la dhihi jiray Yurub iyo maxaa la dhihi jiray Mareykan jira oo la noolnaago guryaha dawladda naaga ku jiray la nool yihiin oo ay cuntada la cunaan because of all everywhere waxa waaye wuxuu daadiyay seedkiisii okay naaga halkaas ay maro aniga naag meedayno daanyeerka dil brada dil daanyeerka dil intuusan adiga ku dilin wax badan bay kugu kosti garaynaysaa brada ilmihii waa sooy wuxuu igu dhahay brada ilmihii naagti maalinba nin bay soo xaraysataa ilmihii isagu dhalay marba nin bay soo xaraysataa buu dhahay okay isagii gooni buu ku nool yahay hadda kadib fiiri shaqo la'aan baa tahay lacag la'aan baa tahay guri la'aan baa tahay ifan ciyaalkaad xalaasha ku dhashay shaki baa galay oo laba kamida
adigu ma dalin DNA baa la soo qaaday isagu muu dhalin okay waxani waa sheekooyinka maalin kasta ka dhaca bulshadeena laakiin cidna kuma sheegayso maadaama aad cabdi orom tahay cabdi orom cabdi Suudaanis maadaama aad tahay oo ay gabdhuhu Soomaali yihiin Soomaali maadaama ay gabdhuhu yihiin adna cabdi Suudaanis tahay lagama hadlayo waa been walaalo waxaas waa nabasho waxaas waa nala nabanaya anagu Soomaali baan nahay walaalo waxaas waxba kama jiraan fuck that shit bro waxba kama jiraan ninka odayga iyo rag kaloo badan ya the same ay ku nool yihiin ilmihiisa dunyada keentay waa khasaare waa u dhamaatay naagtaad la joogtaad la noolayd waa shuubo waxba yaan la isu qarqarin naag adoo maxaa la dhihi jiray qaban ninka la seexanaysa idinka surprise bay idinku tahay naagahan hadda soo baxaya ee dhahaya nin bay ciyaal bay dhashay iyo 8 canug bay lahayd iyo I don't know what the fuck that is but cadayn waxay u tahay ragga Soomaaliyeed meeshay gaareen horaan nin dhalinyaro ah oo maxaa la dhihi jiray laakiin sometimes dhalinyaranimadan laftirkeedu waa maskaxda muft sidaad u egtahay maaha dhalinyaranimadani understand dhalinyaranimadani sidaad u egtahay ma aha okay meeshu ka oynayaaba wax kale ma aha waxay laba nin oo Soomaaliyeed ay hal naag aniga waxa igu dhahday ya ku dilo isla sheekaysanaysid maalinkaas warkayga kugu soo dhacaya ciyaar u malay hadda ciyaar u malay because of maad soo arkin okay maad soo arkin markaan kaaga sheekay ma hagaajin karaysid ma toosin karaysid okay brada waxaad u baahan tahay inaad isbedesho okay inaad isbedeshaad u baahan tahay sheekooyinkan oo dhan waa laga qarqariyaa laakiin laba xaniyoodlayaasha sheekooyinka ay soo dirayaan ya ma malaysan karaysid nin baa ugu fadhiga loo kadanahay isbedel baa Soomaalinimada iyo waxaad ka dhaxarkaysaan iyo maxaa la dhihi jiray waa sidan iyo bararaqda naaguhu ay idinka dhaadhiciyeen okay daanyeerkaas hadduu hadda kugu dhex nool yahay dil daadaada hadday u dhaxayso 20 ilaa 20 iyo maxaa la dhihi jiray 9 ilaa 30 ilaa 35 naag wax aad isu sheegaysaan ma jirto the only thing aad wax isu sheegi kartaan waa inaad jiimkaaga aado maskixiyan u diyaarsanaato oo maalin kasta kor aad maxaa la dhihi jiray isu qaado lacagtaada aad ilaalisid maxaa la dhahaa mental healthkaaga maskaxdaada nabadda maskaxdaada waa muhiim ragga waa isla sheekaysanayaan ragga waa isla sheekaysanayaan maxaa u malaysaa internetka inay iskugu boojeynayaan maxaa u malaysaa ragga inay maqaayadaha la wada fadhiyaan iyagoo calool iyo daba kuusan maaha wax kale waa stress baraada raggii waxbay cunooyaan markuu stresski ka batay cid la hadlaysa aysan jirin cid wax u sheegaysa aysan jirin meelay sheekooyinkooda ku sheegaan aysan jirin meelay ku sheekaystaan aysan jirin kulli waxay noqotay maxaa la dhihi jiray ii sheeg naag Soomaaliyeed idinka orama maatiin baraad ani waa yaabe ani xataa waxaa isdhahay baraad waa iska shakiyey South Sudanese maatay adiga ani xataa shakiyaa qaaday xataa South Sudanese maataa dhaxliye idinka sidii South Sudanese kale idinla dhaqmooyaa baraada okay like iskan 1 million gaarsiya nin laba xaniyoodla soo qoray oo hamidar waa hadda kor waa idin sheegay beeci shalay beeca maanta waa kala duwanaanayaan beeca waa isbedelayaan okay YouTube ka hal daqiiqo YouTube ka subscribe soo saar fikradaha xalliye podcast leesma gaarin baraada okay you understand in raggu sheekooyinkooda ay ka sheegtaan arrimahooda ay ka wada hadlaan arrimaha u dhaxeeya iyaga dhex yaala ay ka wada hadlaan ceeb maaha laakiin maadaama aad siil caabud wada tihiin kulligiin
ceebaad ba u malaysaa nin raga inuu sheekadiisa kaaga sheekeeyo oo ku dhaho baraada sidan baa wax u jiraan ama baraada ninkan bay sheekadan ku dhacday ama hawshan baa sidana naagaad wada noqoteen kulligiin in laydinka jeexun baa idin wada dhiman waraa dil daanyeerka intuusan ku dilin dil daanyeerka intuusan adiga ku dilin YouTube ka subscribe soo saar 1 million likes na ha gaadha barnaamijkan okay waa idin sheega beeci shalay iyo beeca maanta isku mid maaha meeshan cid aan qancinaya ma jirto baraada walaa adiga walaa naag walaa xaliim cid aan qancinaya ma jirto runta siday tahay iyo sida aad dareemaysa waa kala labo haddaad dareemaysid inaad nin fiican tahay fiicnow ilaa aad sonkor ay kaaga dhacdo qanci naagaha igu soo dhisa naagaha kulligiin understand barnaamijka share garay follow samay like iskana socdaan YouTube kana bax subscribe soo saar okay sheekada raggii maartay markii awoodii ka dhamaatay oo meel kale shax kale ay garan waayeen waxay keeneen moogta strategy la dhaho naagta been ku soo xiragali run ku dhaq wax la dhahaa ma jirto 2022 filimka ma shaqeeyo okay adaan rabaa inaad run ku noolaatid okay maalinka aad naago kuma dhahay hal naag maalinka aad naago okay aad keenaysid oo aad noloshaada bilaabaysid inaad naaga la macaamishid waad baashaalaysaa baaba aa lagu leeyahay baaba you understand adiga waxaad u malaysaa hadda inaad joogto xilligan inaad naagu baahantay because of guskaaga ma control karaysid guska gacantaad ku wadataa waa kaa horeeya guska ku fakaroosaa okay markaasaad boosaneer kasta la kor istaagaysaa boosaneer kasta waad la kor istaagaysaa shaqadiin waxay noqotay inaad u dhaxaysaan boon siigo inaad naagaha u nacamlaysaan emotional inaad noqotaan inaad meelaha ka ooydaan okay laakiin gamekaas waa isbedelayaa alpha males inaad noqotaan waay beta malekan iyo simpinimadan inaad iga daysaan waay brother waa jilceen raggiiniyo aniga waa yaabana naagahan maxay ragga u burnoyaan rag daalay waayaba rag daalay waay daanyaro waxaa jira aan la soo celin karin meeshay taagan yihiin okay daanyaro waxaa jira aan la soo celin karin meeshay taagan yihiin you understand laakiin haddii hadda daanyarnimadii kugu jirto waan kuu sheegay calaamadihii daanyarnimada oo aad isku dayayso inaad qof kasta qanciso wanaag too much uu kugu jiro oo aad qof kasta rabto inuu wanaagaaga dareemo gudoomiyaha wanaagga Soomaaliyeed haay waa ku salaamay wiil fiican in lagu dhaho in maxaa la dhihi jiray ii sheeg maanta dhan maaragtay adiga lagu amaano bullshit kaas oo dhan attention kaas oo dhan aad u baahan tahay daanyarkii waa kugu dhex noolyahay barnaamijka share garay follow samay like samay magacaygu waa xaliye barnaamijka daawanaysidna waa fikradaha xaliye podcast waa podcastiga koobaad ee af Soomaali ku hadasha adduunweynaha meel kasta laga dhageysto lagana daawado ujeedada podcastigan waa inay raggu iskugu imaadaan meel raggu ku sheekaystaan ay tahay laba xaniyoodlayaasha sheekadooda ay ku wadaagaan iyaga oo maxaa la dhihi jiray sheekooyinkaas ay yihiin wacyigelin waxbarasho iyo baraarujin ujeedada meeshaan isqabqabsi iyo bararaq iyo ma jirto okay barnaamijka share garay follow samay like samay laba mid ay noqonaysaa 2022 ama daanyeerka inuu adiga ku dilo understand ama daanyeerka inuu adiga ku dilo ama inaad adigu daanyeerka dishid ama inaad fiirisid noloshaada iyo dantaada oo aad hurdada iyo ka kacdid maxaa la dhihi jiray chiefka ya baad u baahan tahay anigu gaar baan samaysanayaa naaguhu gadh weyn bay jecel yihiin lacagta saliidana nifcaaga ka tuugsanaysaa naagahu nin jiimka aaday jecel cuntadii jiimka xataa ma haysid waxan waa laysu balance gareeyaa lacagta jiimka labiska waxan oo dhan waa laysu balance gareeyaa okay maaha hal dhinac maaha ha u bedelin qof sidaad u eg tahay war waxaan yaabay mataqaanaa rag afka bira ku wada sita laba qof baa wuxuu soo qoraya ilkaha iska hagaaji ninkii laba bari kadib biruuba wataabano kalsooni daradii halkaasay maraysaa you understand ma hadli karaysid waxa waaye waa tacbaan baad wada noqoteen waad wada baqaysaan waad wada hurdaysaan kadibna waxaad rabtaan stiil inaad noloshan wax ka heshaan kama helaysaan naagaha isu soo garaacay bes baa idin imaanaya naagaha tacbaanka baa idin imaanaya naag 300 kg waa qaadanaysiin mid oo maxaa la dhihi jiray qaraabata waa qaadanaysiin mid xataa waxaan arkay dhahaya anigu xaliyow anigu maxaa bikrada iyo waxaas muhiim maaha because of waa daalan tahay naag bikra ma heli karaysid shuubooyinkaad la macaamisha ya naagaha daalan baad big deal u haysataa